تزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد إن شاء الله تعالى وحين قلبت وحكرنا زكاة الفطر دقر الصونكي أما زكاة الصونك كواجبيسي دبر عيسي زكاة الفطر بالله يدهدا في عربية صدقة الفطر بالله يدهدا صومالينا دقر الصون بيقوية قانان macnaheeduna waxaa weeye waa kafaaro iyo fidyo la bixiyo soonka dabadii taasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu kabay khaladaadkii iyo surmaseegtadii ka dhexdhacay ramadaankeenni. xadiidkii cabdillahi bni cabaas ayaa asal u ah inuu yahay kafaaro iyo fidyo. farada rasuulu llahi sal alay wasalam zakaata alfitri tuhratan lisaa'imi min allagwi walrafathi wa tucmatan lilmasaakiin فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زكاة الفطر وحين تطابرنا دور قضب ونقدرين إن شاء الله تعالى قضب ككوبات ووجوب كذا قضب كلبادنا ووقت واجبته قضب كصدحات عدة يكون واجبته قضب كأفراد عدة لقب بحنيه قضب كشراد وحل بحنيه بينه كوكوبنا إن شاء الله تعالى. أما وجوب كيدو ومسألة عن مر اللهين عند أهل العلم مسلمين تنا يكون إجماعين طائفة من أهل العلم يسوق جوريا إن يتهي وجوب كيدو مسألة إجماع. حنفية ذا أو كالقادة صد أكتين واجب كأي فرض كأم باير وواجب فقادة كانوا حدا وفرض يقول مركا وإسك استلح أصوله إليه هنا كالقادان واجب كأي فرض ونقنا يا معنا صاوسي بينكم أجره muslimiinta waxay ku ijmaaceen in zakaatulfitrigu ay waajib tahay oo muslimiinta waajib ku tahay dadka muslimiinta ah. xilligay waajibaysaa waqtigay waajibaysaa waqtul wujuubku oo la isku maandhaafay wadaado badan waxay leeyihiin waxay waajibaysaa awwala juz'in min ghuruub ash-shams qoraxdu saaday u dhacdaba way waajibaysaa. qoraxdaana waxaa looga jeedaa habeenka ciidda ah maalinka ramadaan u dambeeya gabalka ka dhaca ayay ku waajibaysaa wadaada odhanaya. wadaadana waxay odhanayaan habeenka ciidda ah waaga ka barya awalu juz'in min tuluuci shamsi bay waajibaysaa. waqtul wujuubka taxdiidkiisu masaa'il fiqi oo farciyaad badan baa ku xidhan hadda kusii mashquuli mayno. xilliga la bixin karo zakaatulfitriga waajibta la bixin karo من أول يوم رمضان بالله بحين كرا إمام الشافعي باكوتاجي جماعة من أهل العلم مالك رمضان بالشباب والله بحين كرا عيد الله مع الموضي صدح مع الموت كهرنا والله بحين كرا جماعة من السلف باكوتاجي صحابة أنا سمين جرتي سنن قد مرتين ابن عمر غير كي أورنجري لما مع الموت كهر بنسيب بحين شري صدح بري كهر مالين كهر رمضان هضوب بشنا والله بحين كرا علماء كوتاجي وحين كدوا لين علماء shaygu mar hadduu sababkiisa la helo sabab wujuubkiisa yimaado shardigiisa la gaadhin waa la hormarin karaa xukunka sharciga sababkiisa haddii la helo waxaa bannaan shardigiisa oon la helinba in la sii hormariyo. waxaa bannaan intaad dhaarato adoon weli dhaartii jabin inaad sii kafaara gudataba. waxbaad ku dhaaratay dhaarta inaad jabisada rabto adoon fulinin maadaamaan maslaxa sharciga ku jirinba marka adoon jabinin shaygii oon xintigiiba ku dhicin ayaad sii kafaara gudan kartaa. fidyada ramadaanka kale waa aragteen waayeelkii iyo xaamilada iyo murdacada inay sii hormariyaan baa bannaan. wixii marka ku saabsan zakadii maalka iyadoo mucajala ayaa la bixin karaa marka shaygu sababkiisa haddii la helo waa laga hormarin karaa shardigiisa bay wadadaha ka duuleen dhib ma laha. adugu ama ramadaan dhexdii sii bixi ama awal ramadaanba sii bixi ama ramadaan hortii intaan dhammaaninba maalmaha u dambaysa sii bixi waxaa weeye way bannaan tahay. waxaa wanaagsan in laga hormariyo ciidda tukadkeeda salaada ciidda ah tukashada laga hormariyo. marka waqtul wujuubki iyo waxaynu maray wujuubkii zakaatul fitr yay ku waajibtaa zakaatul fitri waxay ku waajibtaa saddex shardi ruux laga helay ruux muslim ah
ruux muslim ayaa la rabaa in zakaatulfitriga uu bixiyo waajib ku tahay. nusuustii baana cadaysay min almuslimiin buu nabigu ku farad yeelay. xadiidkii ibni cumar waad garanaysaa, kii haddaan umar ibni cabaas baad ka qaadanaysaa tuhratan lisaa'im lianna kaafirku falaa tahaarata lahu walaa tuhratan lahu walaa gufraana lahu, wax loo dhaafi iyo wax laga tahiri ma jire, waa rijs calaa rijs way wixiisu. idan ruux muslima ayay zakaatulfitrigu ku waajibtaa. shardiga labaad ee laga rabo ruuxa bixinaya zakada waxaa muadiga waa in asaguna uu yahay xor, waa inuu yahay cafwan waxaan u jeedaa xor inuu yahay. falaa zakata falaa tajibu الzakaatu calaa cabdin, addoonka kuma waajibto, waa laga bixiya laakiin asagu ma saaro. alxuriya ayaa la shardiya. waxaa kaloo shardi alyasaaru wاlghina, ruux muslima oo xor oo haddana hodan oo hani yasaarka iyo hinahuna waxaa looga jeedaa maalinkaa ciidda inaad quutulyoonkaada wax ka badan heli karto. quutulyoonkaada wax ka badan, cashadaadii qadadaadii wixii ka soo hadhay aduba saac dhanya iyo suus, waa lagaa rabaa inaad suuskaa bixiso. ma aha inaad biil meel kuu yaallo, akoon wax kuugu jiro oo dukaan wax ku yaallo, gurigu kuu bagaataysan yahay. waxaa loo jeedaa maalinkaa la ciidayo haddaad cidgalkaadi haysato wax ka badan waxaa dheerigaa laga raba inaad bixiso hadduu suus gaadho. hadduu gaadhi waayana wixii aad awoodaad bixinaysaa, lianna almaysuura laa yasqutu bilmacsuur. idan waa shuruudii muadiga ninka bixinayay. ruuxa laga bixinayo asbaabta dadka looga bixiyo iyaguna waa saddex sabab: qaraabanimo, zawjinimo iyo milkulyamiin. yacni ruuxii qaraabada ahaa ee kula noolaa, eed nafaqaynaysa, eed biilaysa, hooyada ha noqoto, aabbaha ha noqdo, caruurtaadii ku xiro oo kula noolaa bishii ramadaan ha noqdo, qaraabo aad bishii wax u tuurayso ood biilaysa ha noqoto. alqaraaba, sababulqaraaba noocii doona ha noqoto, xagga hooyo, xagga aabbo, barikeenta iyo buryakeenta la odhan jiray dhankuu doona ka yimaado. marba hadduu qaraabo yahay waa sababkeena oo waajibiya in laga bixiyo zakaatulfitrigi. xadiidkii ibni cumarna waad garanaysaan, calaa kalaamin fiihi adduu sadaqata alfitri caman tamuunuun. calaa raajixna waa xadiid la cuskan karo xasan marka dadka aad biishaan nafaqaysaan zakaatulfitriga ka bixiya. marka qaraabanimo ayay dadkaa ku imanayaan. sababka labaadna waxaa weeye azawjiya, xaaskaada addoonta aad qabto waxoo dhan waxaa weeye waxaa laga rabaa inaad ka bixiso zakaatulfitrigi. xataa islaantu hadday xoogo waxoola haysato oy khaniyo tahay adaa lagaa rabaa, sabiilkeeda uu kugu waajibayay ayaa zakaatulfitrigan laga rabaa inaad bixiso. hal masalon baa laga soo reebaayo, markuu ninkii faqiiri uusan bixin karin zakaatulfitrigi, islaantuna xoogow ay badar ku nooltahay bixin karto, markaa inay iska bixisaa wanaagsan. calaa khilaafin fiiha oo wadaadda odhanaya gebi ahaanba iyado laguma laho, ama khaniye ha noqoto ama faqiir ha noqotee wadaadkun baa laga rabaa. hadduu wadaadkii bixin waayana waa dhacday, saasna wadaaddaa odhanaya. sababka saddexaad waa milkulyamiin, waa addoommadaada muslimiinta eed leedahay haddii ba la helo zakaatulfitrigooda waa lagaa rabaa. qaraabadii aad biilaysay waa lagaa rabaa. xaasaskaadii zakadoodii waa lagaa rabaa. dadka marka waa saddexda: ninkii bixinayo laga raba islaamnimo iyo xoriyad iyo alghina walyasaar. dadkii laga bixinayo laga raba qaraabanimo iyo zawjinimo iyo milkulyamiin. saddexdaasay kale yihiin. iyadoo sidaa tahay haddaad masaakiin muslimiin kale ku sadaqaysan karto inaad ka bixiso zakaatulfitriga bisha maalinka ciidda way bannaan tahay, laakiin waa in laysla ogyahay hawsha hawl lagu talagala ay tahay. intaa waxaa ii soo raaca marka waxa la bixinaya qadarkiisa, shayga la bixinayo qadarkiisa iyo dadka la siinayo. qadarka la bixinayo nusuustu waxay sheegeen xadiidkii ibni cumar, kii ibni cabaas, kii abi hurayra, kii abi saciid, kulli waxay caddeeyeen inuu yahay saacan min tacaam, hal suus oo raashiina, ama shaciir heed ha noqdo, ama qamadi ha noqdo, ama timir, zabiib, wixii raashiina quutulghaalib ayaa la bixinaya. saacaas waagi hore haddii saac baa la isticmaali jira, nabiguna ku qoonday ku qadaray. hadda inagu saac ma hayno, dadkuna badankood ma isticmaalaan. maqaadiirta casriga haddana waa la isku mandhaafay. 2 kiiliya rubuc wadaaddaa ku qiyaasay, 2 kiiliya badh niman baa ku qiyaasay, niman ka badiyo 2 kiilo 656 garam gaadhsiiyeyna waa jiraan, niman 3 ku dhuftayna waa jiraan. 2 kiiliya badha
badha dhadhaxaad ayadaad moodaaye ayadaha lagu daysto 2 kiiliya badhba calaa shaksi laga bixinayo calaa shaksi adiga xaaska caruurta dadkaad beelayso dadkaasoo dhanba hal 2 kiiliya calaa shaksi ayaa la bixinaya yaa la siinayaa waxaa la siinayaa masaakiinta iyo fuqarada dadka kale looma ogola zakaatulfitriga almasaakiin walfuqaraa ibnu sabiilka iyo mujaahidka iyo dadkii zakaatul amwaal la siinayay inaan la siinin baa raajixa oo la siinayo tucmatan lilmasaakiin almasaakiin hadduu nabigu sheegayna wax hoosta kaga naban alfuqaraa waa meeshii la odhan jiray haddii midkood la sheego kii kale waa diyaar ayib haddii la kala sheegana way kala duwan yihiin haddii midkood la sheegana midkaasaa ku filan weeyaan marka masaakiinta iyo fuqarada ayaa la siinaya masaakiinta iyo fuqaradu ma curfi baa loo laaban mise taxdiidkii zakadaa loo laaban mise taxdiidkii yay su-aal u bannaanta iyo dawarsi baa loo laabanaya waa masale khilaafiya curfigana ha loo laabto ha la yidhaahdo dadka loo yaqaano masaakiin iyo fuqaro ayaa la siinaya zakaatulfitriga goormaa la bixinayaa taxdiidan jumhuura ahlicilmi waxay qabaan in la bixin karo bacda asalaati wa qabla asalaa salaadu ciidda dabadeed iyo ka horba waa la bixin karaa waa ra'yu jumhuur ahlicilm xanafiyo maalikiyo shaaficiyo xanaabilo wadaado yaroo bacdu alxanaabila wadaahiriya oo ikhtiyaaru sheekh islam ibnu taymiya ah waxay leeyihiin haddii aan la bixin zakada ee salaada ka hor zakaatulfitriga ma ah waa in la bixiyo qabla salaati alciid waa in la bixiyo xadiidkii hadda aynu soo marayn ibnu cabaas bay ku dhageen faman adaaha qabla salaati faya zakaatun maqbuula صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أي كل حديث كاتسكو حديث حسن على الراجح لكن لما وداد بلا تفردي أو صدوقين ودادها قاركود أورانيان وممن لا يحتمل تفردهم لأنه حديث عرس وحديث الأحكام وحديني وتقديرات كجرته وعمل بروني عمل الله صحيح يلي مركا رجع العروس وجبال الحفظ والإتقانة unbaa laga qadan kara oo laga taxamuli kara tafarudkooda niman baa odhanaya calaa ayati xaal xadiidkaasi waxaa weeye waa inuu xasan yahay iyo raajixa xadiidkaasa iyagu daliishadeen ayib qolyahan jumhuurta ah xadiidka way khasisahayaan macno mustanbat ah min zakaat alfitri bayna ku khasisayaan marka wayna bannaantay leeyihiin in cumuumka iyo xadiidka lagu khasiso macno laga istimbaaday min adilatin wa nusuusin ukhraa waxaan bannaanayn waxaa weeye takhsiisu nasi bimacnan ustinbita min nafsihi ayaan la ogolayn amaa adila ukhraa haddii laga keeno macnaha laga istimbaado waa lagu khasisi kara wadaaddaa yidhaahda sidoona ha noqotee ruuxa muslimka ha ku dadaalo inuu zakaatulfitriga bixiyo qabla salaati alciid ciidda ka hor inuu bixiyo dadkii mudnaa gaadhsiiyo ayagaasi uu gacanta ka geliyo haddii xaajo ay timaado ama daruuray cudurdaar yimaado akhiirku wuu bannaan yahay matala waad ka gaadhi weyday waad halmaantay dadkii aad siin lahayd baad weyday nimaad lacagtii u dhiibtay oo tiri raashinka gadoo masaakiinta iga siiba hawshii la daahay haddii cudurdaar yimaado iyo xaajo way bannaan tahay taakhiirku lianna xadiidka waxaan ku xambaaraynaa markaa aysan jirin xaajiya cudurdaar uusan jirin baanu ku xambaaraynaa in ruuxa macduurka ah laga duwo hayru macduurkana waa asal diinadoo la yaqaana fi lfuruuci walaxkaam asharciya caan ku ah ama laakiin ruuxa asagoo bixin kara kas u dibdhiga masala fiiha nadar weeye xadiidkuna waa qabanaya ragii jumhuurtuna waxaad moodaa in laga xoog badan yahay waalcilmu cinda allah waxaa ii soo hadhay hal masalo kooban oo ah ku saabsan zakaatulfitriga ma lagu bixin karaa qiime ma lagu bixin karaa raashin in la bixiyo aan isku ogeyn lacag ahaan ma lagu bixin karaa jumhuur ahlicilmi way diidan yihiin oo ma ogolo laakiin jamaaca min ahlicilmi xanafiyadu horkacayaan oo ikhtiyaar sheekh islam ibnu taymiya ibnu qayim wadaadab dambe mucaasiriin fara badan ay dooranayaan waa in la qiimeeyo xaajada iyo xaaladda la qiimeeyo ruuxa miskiinka ah hadday danta ugu jirto in qiimo ahaan iyo lacag ahaan la siiyo lacagtaa la siinay maxaa yeele had iyo goor waxay ahayd ayaga in loo daneeyo fuqarada in loo daneeyo ayagaa loo danaynayay marka waa in la eego alaxwad lilfaqiiri waalmiskiin raashinkii aad siisay qamadida ah ama bariiska ama ogaalida aad u dhiibtay hadduu markiiba suuqa ku celinaya iyadoo qiimo jaban baa laga iibsan iyadoo qiimo jaban baa hadan lagaga ceshan
marka wuxuu qaybsan yaro badan u qaatay inuu suuga ka dhigtay koosaar iyo darihiisa kale ku qabsanaya marka say wax ugu qaybsamaan waxna ugu hagaagaan maslaxada iyo xaajada iyo cadaaladda la ilaaliyo kolba miskiinka sida u roon hala fiiriyay wadaada oranaya ra'yiga marka ra'yi aad iyo aad u xoog badan weeye jamcinaya xaq ilaalinaya naski xaqana ilaalinaya maslaxada iyo xikmada ilaalinaya naski bay ilaalinayaan waxay leeyihiin haddaan xaajo jirin oo miskiinku u roontay raashinka la siinaya hadday baahiya maslaxo kala jirto miskiinku raashin u roonayna qiimihii lacagti baa la siinaya labada marka waa ilaaliyeen qoliha marka xanafiyada iyo جماعة من المالكية وكذلك الحنابلة إيو جماعة من المعاصرين باكوتغي وحا لغو بشيي وحد لطمادين معنى لطمادين يعود على النص بالإبطال طيب وماشي عين إن لبحية آهيد أو راشين لبحية آهيد وحي قيمة كدكتين وحا لغو ما ننبرني بالنص كيبان إلاليني اون توظيفنا اون شققليني او waxaan ilaalinay xikmatu shaaric maqsuudu shaaric baan ilaalinay markuu ay neefku ama raashinku dan yahayna asaga la bixin markuu raashinku dan ahayna maslaxada la eegi maxay yeelay aljumud ala alharf wa dhibaato almughalat fi ittibaa' almaayna wa dhibaato dhaxdhaxaadka sax in maslaxada iyo cadliga lagu socdo ra'yiga marka waa ra'yi qiimo badan oo aad iyo aad u wanaagsan waxaa ii soo haray naqliga asal waxaa weeye zakadu in lagu bixiyo meesha ruuxa musakiga uu joogo asalku waa sida adiga zakatulfidriga bixinaya meeshaad ku nooshahay ama Nairobi ama xiriyaha qaxootiga ama dal ama dibada dadka masaakiintaad siinaysa zakatulfidriga ila naqliyo ma banaana illa li'udrin wa daruratin fuqaraa albalad fuqaraa almakan masaakiin almawdi' ayaa u xaqnimo badan zakada in la siiyo daruuro iyo xaajo waxaan loo marari karo iyo baahi iyo cudurdaar iyo maslaxa kale oo anfac min maslaxati albalad in la helo mooyeen dadka meelaha kale jooga soo diray zakawaadka waxa laga rabaa inay ku qiimeeyaan meeshay joogaan kiilada raashinka ama 2 kiilo badhka raashinka meeshay joogaan waxay ka ahayd lacagteeda bay soo dirayaan dadka Mareykan iyo Yurub iyo jooga waxa la rabaa inaysan nakaartaynin oo aysan ku sargoosanin isli iyo Nairobi waxa la rabaa meeshay joogaan 2 kiilo bar qiimaha ka tahay waa inay u soo diraan haday rabaan in laga sii bixiyo dadka muslimiin ay sii wakaashaan inaasan galabta oran la insha Allah ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh